waxaan u malaynayaa wasaaraddan ahmiyaddeeda hiigsigeeda iyo yoolalka laga leeyahay waxaa si tafatiran u sharaxay wasiirka xilka wareejinaya mudane cabdullaahi bidhaan warsame waxaa isna ku kabay aragtidiisa iyo dowladdu waxay ka damacsan tahay halka ayuu ka soo wari doono wasiirka soo gelaya mudane axmed xasan aadan waa wasaarad run ahaantii nasiib badan oo muddana uu soo hogaaminaya cabdullaahi bidhaan golaha ayaanu ku wada jirnay sharcigii kalluumaysiga markuu keenayay golaha waan joogay marka uu keenayay heshiiskii taariikhiga ahaa ee baydhabo lagu galay lagaga heshiinayay arrimahan wasaaraddu markay keenaysay waan joogay waxyaabo fara badan oo aanu xusin baa jirta oo wasaaradda ka socda dadaallada lagu samaynayo soomaalidu dekedo waaweyn oo maraakiib waaweyn ku soo xidhato unbay ka fekeraane dadaallada uu gacanta ku hayay ee in waxaan chatiska la yidhaahdo maxaa la yidhahda dekedo yaryar oo kalluumaysatada lagu talagalay iyo aragtida laga leeyahay kalluunku marka dekedda laga soo dabo xeebta ama dekedda iyo siduu u gaari lahaa suuqyada dalka ayaan xogogaal u ahay dabcan doorkiisii si muuqata ayuu uga soo baxay kalluunkii si sharci darro ah oo sifaha sharciga dalka iyo ka caalamigaba ka baxsan loo daldalan jirayna sharciyad iyo hanaan loo maro laguna dhowro run ahaantii khayraadka badda dakhlina uu dowladda ka soo galo ayuu u jiheeyey tallaabooyin taariikhi bay ahaayeen waana la xusi doonaa insha allahu tacaala doorkii iyo hogaamintii uu ku lahaa arrintaa dabcan ma ahayn arrin dee wasiirka uun ku kooban waxaa wasaaraddan jooga agaasin iyo howlwadeenno iyo la taliyayaal dhallinyaro firfircoon oo arrintaa si joogta uga shaqaynayay waynu u mahad celinaynaa dhammaantood insha allahu tacaala ilaahayna uu ka abaalmarin doono markaan intaa kaga baxo walaalayaal ahmiyadda ay leedahay wasaaraddani waa mid sida cadceedda u muuqata haddii xoolaha nool adhiga iyo geela iyo lo-du ay ahaayeen lafdhabartii dhaqaalaha soomaaliyeed hadday ahaan jireen ama yihiin ama ahaayeen kalluunku waa aayaha ummadda soomaaliyeed in badan baynu waxaynu maqalnaa soomaalidu waxay leedahay badda ugu dheer oo 3,300 iyo siyaado kilomitir ka kooban laakiin xagga marka aad boqolli u rogto in intee lag bay ka faa'iidaystaan aad bay u yar tahay marka fursadda wasiir aad wax ku qaban doontaa aad bay u baran tahay si weyn ayaad u kicin kartaa adduun weynuhu guud ahaanba wuxuu u guuray wax la yiraahdo blue economy dhaqaalaha buluuga ah oo baddaas iyo sidii loo manfaacadsan lahaa sidii tamar looga dhalin lahaa sidii khayraadka ku jira looga faa'iideysan lahaa ayuu u guuray wuxuu wasiir axmed xasan aadan uu xusay in askarta Soomaaliyeed la siiyo kalluun laga keenay Thailand iyo dalal fogfog waxa barbar socota qaxoontiga Soomaaliyeed iyo dadka baahan ee gurmadka loo keenana waxa la yiraahdo wax borotiin loo nafaqo leh la siiyo waxyaabaha aan maskaxdeeda ka baxayn waxa ka mid ah haddii aad tagto meesha la yiraahdo goob weyn ama halka webiga iyo baddu ay iska galaan waa meel laba nimco oo Ilaahay uu inagu galladay webi iyo bad ay iska galayaan cirifkeedana baahi baa ka jirta lagu leeyahay qof Soomaaliya ku gaajaysan soo arrin cajab lama haddii goob weyn agteeda lagu gaajaysan yahay dhulalka gubanka iyo saxaaraha ah maxaad ka falaysaa waxaan jeclaan lahaa sawirkaasi inuu noqdo sawirka wasaaraddu ay ka duulayso ma aha in nimcadu inagu yar tahay ee waxa weeye wax soo saarkii iyo aqoontii ayaa bariyahan dambe maadaama qaranku uu inaga burburay xogay nusqaani ay ku timi
dowladihii hore waa daraaleen dhaqanka reer guuraannimada ee geela iyo adhiga in la daba socdo in badan bay dowladdii hore ku daraashay inay dadka beddesho oo haddaad marmar hadda youtube-ka gasho waxaad arkaysaa nin heesihii geela u qaadaya kalluun iyo sida loo dabto 80-meeyadii 70-meeyadii abaarihii iyo hawlihii dadka deegaanada qaar ku qabsaday badda hal la geeyay baa la yidhi halkaasaa manfac ugu dhowey waxaa kaloo loo baahan yahay dhan wacyigelin wasiir oo dadka Soomaaliyeed kalluunka inay cunaan waa in la baro aniga waxa laga bilaabay kalluunku in aynu dhoofino kaliya maahe waa in haddana run ahaantii aad bay isu bedeleen dadka Soomaaliyeed magaalooyinka waaweyn aad baa kalluunka looga cunaa isbedel baa ku yimid marka xoogay dhaqan bedelis ayaa la rabaa anfac ahaan iyo caafimaad ahaan iyo dhan walba isaga u roon dadka taana xoogay dhanka isbedelka bulshada inaad keentaan baa loo baahan yahay waxa taa barbar socota kobcinta aqoonta muwaadiniinta Soomaaliyeed anigu waxaan kugula talin lahaa jaamacadaha intaad la fadhiisato digriye iyo intaan la gaadhin xirfadley waxaa jira barnaamijyo TVET la yiraahdo technical vocational training oo la rabo tababar toos ah in dadka lagu siiyo qofku sidee buu arrimahan u gali karaa waxaa kaloo jirta iibgeyn in la baro dadka Soomaaliyeed sidee waxaan loo iibgeeyaa loo kaydiyaa suuqyo cusubna loo soo helaa waxaan ku kalsoonahay waayo aragnimada wasiir Axmed uu leeyahay 10 sano ka hor buu halkan fadhii jiray intii kalena wuxuu ku maqnaa adeeg bulsho iyo bahda caafimaadka iyo waxqabad marka nin maanta la dardaaray isaga iyo raggiisa wasiir dawlaha iyo wasiirku ma ay aha run ahaantii firfircooni iyo aqooni dhalinyarada ka muuqata iyo khibradii hore ee wasiirku uu lahaa wasaaraddan marka inta la isku daro in wax badan ay isbedeli doonaan ma filaya blue economy-gu inuu yahay future-ka dalka ama aayaha dalka iibgeyn buu idinka rabaa inaad fahansiisaan wasaaradaha kale baa la rabaa si wada jirana loo wada shaqeeyo intaasaan rabaa inaan ku soo koobo insha Allah taala waxaan kaloo dardaaran idinku siinaya intifaacsi iyo ilaalinba way u baahan tahay badda iyo wabiyaduba labadana hal isku dheelitiro waad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh